السلام عليكم مدعو سفر إنا كهلا أروى حياتها سؤال ugu badan oo isu soo noqnoqtaa waxay ahayd adoo lagu kufsaday oo dhibkaas lagu geystay maxaa u qarisay hadaa idin sheegaya waligii hooyaday waxa dhihi jiraan hooyo gabar kale maxaa iigu dhalibeysay maxaa keligay ii dhashay keligay ina dhashidna gabar walaalaha u baana waxa dhihi jirtay may adaa kun gabar iiga fiican adaa wax kasta boqorada tahay سين طورت كده هاي ولا يحرف فرعمي بأبودي باين هذا وقت صدق وأمس حنونك أنا عذري ما يوحي كلوينا هو يدي نتكدرين دون تمرقع وشيء مستقبل كينا باي وأوجا وحكستيني يجوب وأوجا هذاني هاي لا سينو كندن تباس لا sababta hooyaday markasta way ugu faani jirtay dad badan bay dartay ula soo kala go'day dad badan oo hooyaday heer walba gaari lahayd ani dartay u gaari weys inta u tago sidee ku dhahaa hooyo macaan hooyo igraale noqo maaska aragto aksoo bixi waay shalay keligay ahay maanta laakiin maanta waxay tusteen wiil kastoo Soomaaliyeed inuu walaalkii yahay hooyaday waxa dhigi jiray hooyo gabar maxaa iigu dhalibeysay laakiin maanta adiga walaal ii noqotay kun gabar inay la dhalatay aaminsanaa hooyaday ma awoodin inaan hortaga aadho hooyo see ku dhaha hooyo nolosheedii gabadhaa ku faani lahayd rajadaada waa khasaartay ما هو أبودي معي sababta u qariyaan sababtaas ay ahayd laakiin ma aamusin oo gabar masaakiin oo jilicsan maana noqon waa dagaalami inta dagaalami karo nimankii waa xiray waxa isdhahay waa guuleysatay maanta waa noqon kartaa gabadhii hooyada ay rajaynaysa inaan noqoto laakiin may waa noqon waayo hooyo macaan iska kiyaafi